بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة بنتلاند مدن سعيد عبد الله الدني indhoweytaba waxa uu joogay Muqdisho oo ka qayb galay shirka dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee looga arrinsanayay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya shirkaasi oo caawa soo gabagaboobay waxa ka qayb galay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo uu heliyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna siyaha xilka ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka mahadguuleed shirkaasi oo muddadii u dambeysay socday kadib kulamo ay yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah uu heliyo maamulka gobolka Banaadir maalmihii la soo dhaafay iyo habeenadii sidoo kale kulamo ay qaateen waxa ugu dambeyn ka soo baxay oo murtiyeedkan maanta ay madaxdu ay wada gaareen waxaana ka soo baxay shirkaasi in dowladda federaalka ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dowlad goboleed ah labo in deegaan doorashooyinka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka laga asteeyo laba magaalo oo caasimadaha gobolada oo ku dhisan yahay dowlad goboleed kasta saddex in tirada ergada xildhibaan walba soo dooranaysa ay noqoto 101 ergo oo metelaysa beesha wadaagta kursigaasi afar in xulista ergooyinka ay iska kaashanayaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah iyo dowlad goboleedka shan in qoondada haweenka ee 30% la ilaaliyo lix in baarlamaanka heer dowlad goboleed ay soo doortaan xildhibaanada aqalka sare toddoba in xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland ay soo doortaan ergo metasho oo wada jir ah sideed in doorashada xildhibaanada labada aqal ee Somaliland ay ka dhacdo magaalada Muqdisho sagaal qorshaha doorashooyinka dalka waxa uu bilaabanayaa 1 bisha November 2020 toban in sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay'adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah 11 heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbinayaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan 12 madaxdu waxay adkeynayaan in xurriyadda hadalku ay tahay lama taabtaan sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ah iyo xeerka saxaafadda ee dalka sida darteed waa in warbaahintu fursad loo siiyaa inay si xor ah u tabiso goobaha ay codbixintu ka dhacayso lagana fogaado wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas'uuliyadda kaga aadan doorashada 13 shirku waxa uga mahadcelinayaa madaxda iyo bulshada dowladda Galmudug sida ay u martigeliyeen shirarkii taariikhiga ahaa ee Samareeb 1 2 iyo 3 sidoo kale waxaa ammaan mudan shacabka iyo maamulka gobolka Banaadir sidii diiraneed ay u soo dhaweeyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo fuuda la socotay 14 waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyay muddadii ay wada hadalladu socdeen isaga oo xooga saaray in wadajir iyo wada ogol lagu dhameeyo arrimaha doorashooyinka dalka 15 ugu dambeyntii shirku waxa uu ku bogaadinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ay ka geysanayso dib u dhiska iyo horumarinta dowladnimada Soomaaliya shirka ayaa intaasi warmurtiyeedkiisu dhamaad ku eegyahay intaas ku soo gabagaboobay 15 kaas qodob